بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta Soomaaliya nin walba oo muslim ah oo Soomaali ah oo islaamnimada ay ku jirto maanta wuu xanuunsanayaa wuxuu la xanuunsanayaa dhibaatada lagu geystay walaalahooda Soomaaliyeed gobolka Laascaano ay u geysteen maamulka xun oo guracan ee Somaliland ee sida xun oo waafaqsan sharciga kula dhaqmay ummadda Soomaaliyeed oo halka degneed 30 sano. waxaa maleynayaa nin walba oo Soomaali ah oo dhiig islaam ku jiro maanta xanuunkiisa asagoo baa dareemi karo. war Ilaahay baan ugu dhaarshay ma islaamnimo miya ilmo yar ah haween iyo caruur ku jiro in lagu kurtanto baabuur lagu soo xaraasho umusha naagta xaamilada ah bal dhibaatada intaas la eg ninka ragga ah wax walba oo u dulqaadan kara asiin ciyaal iyo dumar tan oo kale uma dulqaadan kara mana adkeysan karaan ninka ragga ah maanta hadday sameyn lahaayeen taa rag inay qabtaan sidaan ummadda Soomaaliyeed ama wala xanuunsateen ila tahay. waxaan leeyahay bulshada kale ee ku dhaqan meesha ee reer Somaliland haddii raali ay ka ahayn inay dadkan walaalahooda ah ee la xaraashay oo sida xun loo dhaqmay hantidoodii maalkoodii lagu dhacay lagu burburiyay waa in ay na maqalsiiyaan dareenkooda ay maanta u kacaan walaalahooda oo maamulkooda ku banaan baxaan haddii islaamnimo jirto oo raalana ay ka ahayn si ay dadka xanuunka hayo iyo caafimaad u helaan. sababta oo xanuunka waxa keenay walaalaha Soomaaliyeed sida xun loo dhaqmay qayladoodii iyo qaabka loo dhaqmay ee maanta social media yaacaya. wallaahi billaahi tullaahi haddaana aan iska qabanin Muuse Biixi Laascaano nabsi ayaa ku dhacdo waa ogaan doontaa maamulkaas maamul jiri doon maamul Soomaaliya ma jiri doon warkii aad u dhageysta waad ogaan doontaan. waxaan leeyahay Somaliland maamulka Somaliland arrintan dib u iskugu laabtaan nabsi ayaa ka dilaaca doona nabsi oo dadkaas islaamka ah oo masaakiinta laga galabsaday ogaan